نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانها وقيد هوزي في مرنا إلهي طاعة دي سيد دقرقي سمدينين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبطي هبلوضوا لها مركلي الله قوض الدلي أو نفط الله قوض قبتي وسك الصبري تضبطي ويلوا لها أنا مركلي إسرائيل وسك الصبري باريه تجارتي حوله لها يودن مركلي الله قاضي وسك الصبري برقاسة جركيسي ولي من حنون لقول ردي وسك الصبري حنون نوعية قاري وعلى الجركي انتو دماضي هرقي يلا فاس كو دقن بس markaasa wax ehela waxa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtaa leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraada ayuubow xanuunkan halkaa ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaa tahay ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisa ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kara laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshu ku xaajoonaya markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu markaa ku ducaystay baa leeyahay ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idnada wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ayyub alayhi salam rabbigiibu u dhawaaqay oo rabbigiibu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yiri ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga qaad buu yiri ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa leeyahay halkii uu joogay baa lagu yiri lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsanaa awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee يعني أذكو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها صوصارين لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدوية نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم كان روح ذا يقول حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا النظام كإلهي إيش إنه مقابنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلكتي بالنبي أيوب سعود قاجيي للكو كعليي لبضل لقوا دحلو ذي بيه كصوبحين بالليل لبا إلو ضبيا إلا وحال يريو كم يريو إلا وحال يقول يا عم وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء قدها وحي حنون كجرو دم بناك وكصوبحين وصوك عبي مركلية حاسك سيبا مقالة كتمدي ويكوريكتي يدو حشونaysa marka waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaanaha oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaalada aan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay miya dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhalinyarnimadiisina adigu aad kuugu ekaayo formigiisi baad leedahay
markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayoo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayri fahum yuusacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun fatabassama daaxikan min qowliha boqortooyaday ilaa halkaa gaadhsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiyey war boqor nuucaay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati asaad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay fii kulli zamana farduhu waa shay qaaliya fardihiisii uu ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddee saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacado waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaanno ilaahay la munaajoonno saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu yidhi fardaha aaday hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buuhi ii soo celiya kurkaa ka wada jarayaaye waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen innaga salaaddaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadeenna weli ma bixinay ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaadda galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqii ilaahayna wuu ku gutay xaqii bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqii ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka qur-aanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saa diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay